السلام عليكم وولاشي فرصن iyo dumarkaaba channel soo dhawaada ugu horeyn hadaan nagu subscribe noo saar hore hadaan noo ku jirtay nala sii joogo wixii fariino comment noogu reeb aad baan idin soo dhaweynaya channelka waa channelkiini maanta waxaan noo wadaa barnaamijyadeennii hore inoogu socon jiray kamid ahaa dhiirigelinta iyo talooyinka dumarka la siinayo maanta hadaan inoo guda galo videogan ka hadlayo waxa weeyaan dumarka waxa daraasado badan oo la sameeyay baa waxa la yiri xanuunka depression-ka la yiraahdo ama stresska ama isku buuqa intaba qofku u yaqaano waxa la yiri ragga 10 ninba waxa laga helayaa hal nin amba marka uu ugu badan yahay 2 nin okay sida la sheegay hadaba dumarka waxa la yiri shantii dumaraba waxa laga helayaa 2 taas oo ka dhigan tahay 10kii dumaraba inay ku jiraan 4 depression qaba hadaba su'aalaan isweydiino maxaa keena amba maxaa ugu wacan inay dumarku ku bataan xagga ragna ku yar yihiin inay dumarku ku bataan xagga ragna ku yar yihiin okay hadaba dhinacyo badan hadaan ka eegno amba dhinacyo badan ka hadalno isbarbar dhigno waxaan oran karnaa koow horta raggu taraga ka soo bilowna koow waxaan oran karnaa raggu culeysyo badan oo dumarka oo kala waxaan oran karnaa ragga culeysyo fara badan ma saarna oo dumarka saaran taas oo ah xagga maxay hayday abuuritaan amba jir ahaan oo kale amba maxay hayday xagga naf ahaan oo kale tusaale ahaan hadda soo qaadano ragga maxay hayday ma galaan 7 cisho oo bishiya ta xigta waxa weeyaan uur ma yeeshaan ma walacaan ma fooshaan intaas oo marka laga imaado waxa dhacaysa raggu talabaad inta badan ay ku shaqaystaan xoogooga macnaha sax waarun oo reerkooga shaqaystaan laakiin haddana qofka markuu wuxuu isagu leeyahay uu jeebkiisa ku jiro iyo qofka markuu qof kale wax ka sii sugayo isku mid maaha ragga hadaba iyaga shaqo way shaqaystaan jeebkooga ay wax kasta ku jiraan maanta hadii ay ka soo dhacdo inay baxaan shaax meel yar oo shaax Pakistan amba cafeteria wixii ay isticmaalayaan wax jeebkooda ku jira okay dumar ragga xagaas kaga tagno hadaba dumarkana aan barbar dhigno dhinaca ragga dumarka waxa ku dhaca toddobaadkii way bishiiba toddobaad buu maxay haday caadi kaga dhacdaa uur bay yeelanaysaa way walaacaysaa way dhalaysaa way foolanaysaa intaas marka laga imaado 40ka markay ilmuhu dhasho 40 cisho waxa ku dhacday hooyada hurdo la'aan ilaahay wuxuu noo sheegay in habeenkii la seexdo oo macnaha si naftu u nasato laakiin caruurta sida la og yahay sida u badan yihiin 99% aan oran karno markay dhashaan 40 cisho ugu horeysay 40 ku jiraan habeenkii ma seexdaan maalintii dhan ku hurdeen habeenkii ka seexanayaan okay maamadii hadaba maxaa ku dhacaysa maalintii oo dhan wax ka shaqaynta guriga haday ilmo kale u joogaan iyo hadii maxay haday iyada kaliya xataa ninku ka maqayahay tusaalaha inay wax iska kala nadiifiso inay cunto karsato inay gurigii dharkii ilmaha umusha oo iska hawlo badan tahay habeenkii xilligay nasan la jibsan ilmihii ba ku jeeda halkaas culeysyo badan ba ka saaran waxay noqotay xagga kale dumarkii inta badan khaasatan Soomaaliyeed lama shaqaysto guriyaha la wada fadhiya taas way tahay haday maanta u baahato madax xanuun kiniin u baahato ninkii weydiisanaysa haday maanta tiraado banaanka weer baxa cafeteria ninkii weydiisanaysa wixii ayadu nafteeda u baahan tahay wixii guriga looga baahay wixii carruurta u baahan wax dhan waxa la weydiinaya waa ninka hadaba tusaale ahaan qof adiga markii waxa jeebku ku jiro jeebkaaga wax ku jiraan saad doontid baad ugu macnaha ugu tasarrufaysaa badday waxa dudba ku saqsinaysa laakiin ay taasi meesha ka baxsan tahay ma jirto marka aad adigu waxba haysanin amba qof kale ka sugaysid marka maxay haday barnaamij mar rabo video inuu sii dheeraado insha Allah waxaan sameyn doonaa part 2 ka sameyn doonaa sida looga bixi karo iyo waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad waxaan idin codsanayaa inaad videogan share gareysaan channelkana subscribe saartaan baan idin salaamayaa talabaad waxaan markasta ku soo celceliyaa oo ku dhiirigeliyaa dumarka hal shaqaysto adigoo guriga jooga xataa imika waxa lagu jiraa waqti horumar alxamdulillah guriga kasta khad baa ku jira hadduna xataa khad ku jirin waxaad isticmaalaysaa daato ayaad haysataa waxaad samayn karaysaa ganacsi social media ilaahay noo fududeeyay ganacsi waad ka sameyn karaysaa waxaad guriga inta alaab soo iibsatid dhex dhigatid ayaad ku iibin karaysaa ad social media ku xayeysiisanaya saas oo lagu soo raaxayo saa ognahay dad badan ay ku shaqaystaan rag iyo dumar bale marka waxay dirteen khayr iyo caafimaad
aad baan idin salaamayaa. Fiidiyowga xiga intaan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa. Salaamu calaykum.